waddo dhererkeedu uu yahay 1600 mitir oo dhaxmarta magaalada Boorama ayaa waxa ay isku waafaqeen dadka deegaanka gaar ahaan xaafadda Axmed Gurey duqa degmada Boorama iyo dad kale oo markaas iyagu xaafadaasi ku nool in ay jidkaasi oo carratuul marka hore ay shirkadi ka dhigaysay laga dhigo mid laami ah arrintaasi ayaa markii ay isaga yimaadeen odayaasha culimada iyo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boorama Cabdiraxmaan Shidabel arrintaasi ay isla qaateen Maxamed Nageeye oo isagu kamid ah shirkadda fulinaysa arrintaasi oo ka hadlayay ayaa waxa uu yiri maanta halkan waxaan joognaa maanta wadda carratuul oo wadda carratuul oo bixiyay mashruuca GBLG ga la yiraahdo oo 1600 mitir ama 1.6 kilomitir kadib markay qabsoontay 1 kilomitir oo kamid ah 1600 mitir waxay isla garteen culimada odayaasha iyo maayirka degmada Boorama in laga dhigo wadadii carratuulkii maadaama in wax 6 bilood wax ka badan ayna shaqeyneen in wadada laamiga laga dhigo halowsigaas ay yimiday wala isla afkartay waxa arrinta rool weyn ka qaatay maayirka degmada culimada oo hormuud yahay Sharcali Dheere shaqaadan شغالي هذا النور ديرية ظاهر نور odayaasha injineer Mubaarak iyo culimada kale masaajidda oday inta way ka qayb qaateen sidoo kale halkaasi waxa ka hadlay Sheekh Cali Aadam Nuur oo kamid ah culimada magaalada mustaqbalkeeda marka anaga waxa rajaha nagu beeray iyo muxuu hawsha inaan bilowno runtii dadka diyaarka ah dadkeena dibadda iyo gudaba iyo runtii maayirkaas oo maanta mas'uuliyadii haya oo isagina na dheeriyay marka kaligay ma ahayn rag badan oo hadda iga hawl badan ba halkan jooga oo hawsha inta ugu badan hadda dabaabilkeeda marka imika nala qabtay oo runtii waa kuwa wada joogaan oo culimo iyo maartay odayaal intaba waxaan isleenahay inta iyo in ka badan waa qabsan karnaa hadda halka bilowba inoo noqonaysa laakiin inaan magaalada dhan laami ka dhigno insha Allah ayaa amalkeenu yahay ama fikirkeenu wadada kalena aan dhameystirano marka waxaan leeyahay waxa diyaar u noqotaan dadkeena maanta aan rabno inaan wax ka qaadno oo magaalada Boorama degan ama dibadeeda jooga oo banaanka ku maqan waliba gaar ahaan qaybta imika xaafadda Axmed Gurey dadka guryaha kule ما أحمد قري بالأورن جري وحافظ أحمد قري مركز علي كلكم مسوق حافظ أحمد قري واي كسب بلاد ميسا هل كي مسكيت كي هروي كسب بلاد ميسا أول بشر عثمان لو كوجرتا مركز عثمان ويكوجرتا هل كان إلى قرقاب بيكوجرتا مركز أنت تذكر دقن وحن لنا هاي قيبت أبوين هكقاتين يدعو هالكاسي سيدو كلا وكهل لي شيخ حسن خير الدر رسولك صلى الله عليه وسلم وحده صلى ودوين كلها جاجيو لامها إيمانك لان كاملة ورسولك صلى الله عليه وسلم إمادة الأذى عن الطريق يعني توحيد كمر كل أمين سكور رمي إيمانك وحيري أعلاها توصل رئيس ولا إله إلا الله وحنا وجوها سيصل لامها إيمانك والله أنت وجو يرى إمادة الأذى عن الطريق يعني وح ربا أو محوها طريقة لقطورة لفت كتورته نجحت كتورته وضحت كتورته إن هذا جاي سود وناجي سود طريق لمري كرات كدكتانا وواح آدي يعني وناكسن وحنا نادي بكرة صارنا رنتي وأنكون نيتنا هاي بدأس إن شاء الله تعالى حقوق من دونه. waxaa isaguna ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay duqa degmada Boorama Cabdiraxmaan Shidabel oo isaguna ka hadlay ahmiyadda wadadaas u leedahay loogu soo shubaya lacagta iyagaan maxay ku hambalyeynayna oo ku soo dhaweynayna annaguna qaybtayda kale inaanu ka qayb qaadano midna waa ka sii digayna hadday roobabku iyadoo sida loogu jiray nagu yimaadaan waxbay nooma qabsoonayaan dadka wax bixinayana waxaanu leenahay waqtigii roobka soo dhow maadaama waqtigii roobku soo dhow yahay waxa yaray imka la isku nanabaynayaanay haddana kala daadanin si degdega oo annagu waxaan doonaynaa inaan jecelahay intaanay bisha ay dhamaanin inaan ku dhameystirno wadada oo laamigii lagu soo lagu dhameystiro dadkana waxa leeyahay ka soo horeysiya si ay ugu qabsoomaan waxa ay doonayaan ujeedada ay doonayaan inay gaarto ilaahayna khayr hayna waafajiyo xasan ciise shabakada wararka Sal News Boorama